idinkood kama sayra qorxdan waad uga dhalatee abuurtaada cajiibsana abuurtan cajiibsana لا إله إلا الله أبورت ربي السماي فيري اوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وايد السلام دمان صاحبada halkaan aan mar walba saaxiibada ku nahay war badan ma jiro waxaan joogaa hadda intee joogaa Hargeysa cadee ayaan joogaa jamhuuriyadda barakeysan waaw waa muuqaalkayga koowaad iyo sidoo kale maalinteeda koowaad ee Hargeysa horta soo dhawow channelkii ku soo dhawow kashka waxaan leenahay halkan waa Hargeysa si fiican hasmarteenin haye soo dhawow magaalada lagu geynaa de waa lagu kala kicinaa bulshada waa salaaminaa aad iyo aad soo dhawaada idin leenahay thank you ku leeyahay reer Hargeysa horta aad iyo aad u mahadsanyihiin sida quruxda badan si madaxa loo soo dhaweeyay ninkaan madaxa bilaa hadalaha loo soo dhaweeyay reer Hargeysa cimaamadeedii ka dhicin brother goobtiis ma qarisay goobtu ka dhicin aad leeyahay waxa sidoo kale muuqaalkaygu u heliyo oo kaamirada qaybta dambe taagan youtuberkii reer Hargeysa أحمد Oh my god waxa laga qaban karo malahan walaalkii Cabdullaahi Kashka waxaan leenahay Hargeysa cidi kaama lahan adaa iskale ku raaxayso meeshu waa meeshaadii maanta program aad u qurux badan buu idin wada saaxiibkay idinka isaga idin soo gudbin doona ayaa bilaaw okay maanta waxaan rabaa oo waliba xilli duhur ay tahay aan u soo baxay maanta in aan tago xaafado badan oo aan dhegta ka maqli jiray oo aan maalin walba maqli jiray gantaalaha jigjigo hebelka xawaadle isaaq sug waxaan kula maqli jiray reeraha xaafado badan jira soo bahan bakinka iyo xaafadaha fakinka miya xaafadahaas tagi doonaa qof walba oo ka mid ah ama reer Hargeysa jooga xaafadahaasna waxa jeclaan qaybta comment-ga inuu ku soo qoro bal maanta imaalinteeda koowaad muuqaalka sidoo noqon doono waxaan dhex qaadi doonaa hadda waa caasimadii Hargeysa inuu wadiya wali waa soconnaa waxaan dhex maraynaa markaan bartankii Hargeysa Ahmed tamarina hadda meeshaan adaa shaqadaada tahay yes salaam halkan waxaan maraynaa hadda tiyaatarkii hore halkuu ahaan jiray tiyaatarkii hore yes ayaan maraynaa haddana waa tiyaatarku laakiin bariga hore halka waxa lagu qaban jiray xafladaha aad u tiro badan sax waayaan waa loo cag wareejiyay waa iyadoo la cag wareejiyo hoteelada batamiya waxa laga dhisay imika qasri kale oo another level tiyaatarka secretary-kiis waa salaameynaa waa agmurunaa waa dad waaweyn ka soo baxeen meeshaan dii kugu la yaabka badneed waa tee intaad maqlaysa ha wallahi xaafado badan jiro wallahi xawaadle ka war xawaadle waa qabiil Soomaalida qayb ka mid ah oo degto waxa waaye sheek Soomaalida dhexdooda xawaadle kulaha waayahay aniga aadi doona laakiin dirtaalaha ka war iyo hoobiyaha ma dirna waad arkaysaa dir iyo waxaan u tagi doonaa hadda Saleebaan iyo Ceen raadinaa waaw hadda waqti xaadirkan waxaa joogaa centerkii magaalada يعني ماشي مقالدي لسكوه إيماناي هذا مال الله تلصمته واوري ومال هذا بدن جام كده اسكب بدن يا هاي هذا ما يسمع شرح هل كان عداني بالليل هذا عداني اللي لا مقايدة قوريسي وكفتيري يقول مقالة هرقيس لك سميه كشكين داوس meeshan xataa waxa ka jira ganacsiyo aad u tiro badan waxa leenahay guuleystade dhalinyaro aad u tiro badan baa halka wax ku qabsataa suuqi waa inta hadda meelo badan aad tagi doonaa insha Allah soo dhawaada mar kale waxaan hadda joogaa meel la yiraahdo gacanta waxaan rabaa inaad tuso soo dhaqaaq Ahmed Jay waa shan waa gacan ayaa ku sawiran gacantan aniga ma hayi taariikhdeedu waxay tahay ma hayo laakiin se waxa ku sawiran magacyada akhri awdal saaxil sool waxa ku qoran awdal saaxil sanaag waxyaabahaas ku qoran waa gacan ayaa ku qoran kuna sawiran lagu xardhay calankii quruxda badnaa ee jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland waxay tilmaamaysaa gobolada Somaliland gacanta gacanta lagu qabto gacanta waa taas arkayaan aniga maanta meelo badan aan tagayaa Somaliland ayay igu dilxisnaa wax yar xaafadeedaan ku tagayaa
mahadbalinta ugu badan ninkaana iskale oo maasha Allah iyo Axmed asxaabta dhalinyarada fiican. waaweynka Aye. dhammaan youtube-ka cidda daawanaysa oo dhan يا سلام تيم FJ waa ninka ka qayb qaatay muuqaalka quruxda badan inuu Aad iyo aad. maasha Allah aad baan idin salaamayaa soo raaca ما walaalkii qaali waan garab taaganahay waxaan leenahay dhammaan Thank you, Cabdullaahi thank you, Kashka thank you. tiimkiisana sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaadha takalana aniga sanadka weliga miloobi doono labada kulaatiin labada wuxuu ugu dhashay Somaliland والله ريلي aad iyo aad weliba inaga weligees arkin أنا كولي أنا سأكلها حبين كاس هذه- عن دبال تقري walaga helaayo hadhow lagu xasuustaa هيا sanad loo hagaage noqolo haweeyahay نقو noqolo haweeye Aad baan idin salaamayaa 22 dhammaantiin. waxaan rajeynaa bashbash iyo barwaaqo kashkoo guursado 13 ciyaalo hal mar dhalay hadda joogaa garoonkii weynaay ee Hargeysa Stadium. Garoonkii ama stadiumkii weynaay ciyaarihii gobolada lagu qabanayay gobolka ku guuleysto oo ahaa isha magaciisa gobolkaas waa iloobeen badhan mu aha gobol oo ahaa laakiin ma Way iga xasuusto. lunsantaa aniga. Ani naftirkeyga ma xasuusto stadiumka naftirkeeda wuxuu qayb ka noqday meelaha aan tegayno Kumatii ku soo qor. iyo meelaha aan tegayno sharaf ay inta koox ayaa ku tareen garanayso koox ayaa ku aalmiiteynayso dhib malaha salaadii hadda gal rabnaa walaalayaal oo macaano Hargeysa sidaan maanta asxaabtuniyo waa yaabayn kolba meel baad naga dusinaysaa kal ilaab anaka marba meelaan tegaynaa marba meelaan tegaynaa aad iyo aad. Hargeyso garoonkii ay maannay stadiumkii waan joognaa Haye. weynaa ee Hargeysa Haye. ninkii kubad dheelaya hayskeeno meesha halkaad sigashada. kuwa damiinina jiro meesha laakiin Cabdullaahi Kashka weli bala wuxuu ka goolada ahaan jiray أنا عياران بروفيشنال دمينة هو وين ولا يقارن قالوا هذا- وفير ما عنده يضحك ودينا درس له إله هدوء لاعبتنimada Muqdisho ninka soo دمينة qaatay تدرس Muqdisho دمينة Shabaki. الفنان الحلو صدقوا فنان داير عد كيس اللي جعلي هاي heestii sidee هذا هل عد دتكي هل عد يقطر dadkaaga ها يقطر يا أمس ها تاسروا asxaabta waxay leeyahay soo dhawaada وركشك يعني حتى لو كنت الناس وحوانك هاي هاي تسيقول soo dhawo undida marka la dhaha heese اوكي انا كرسونا كو قبا asxaabtoodii salaanay ورسلانتي جوجي وروك عشان انا قاعد نسكت حاسس انا معنا وبلا هاي idinkood kama sayra qorxdan waad uga dhalatee abuurtaada cajiibsana abuurtan cajiibsana لا اله الا الله ورد ربي سوي فيري سؤال كويدينا نيو waxaa la dhahaa aroos badan laga wacaa aroosada markaa tagtid waaya sababta free ugu isticmaashay oo awna waxay iga baro lacagaa dad qaato artay xaarata caloosha ka salma dhacay markaas iska ilaaliyo lagu yiri okay warkaas waxaa noo soo tabiyay in aroosada lacag mooyee lacag bin xun aroosada aan ku haystid lacag mooyee lacag bin xun lagu yiri واو waxaan markaan u soconnaa xaafad aad iga qosolsiisay ee dadka aan caadi la tahay xaafadda xawaalayaasha u socda والله دني xawaale macnaha anaka waa cid degto Soomaalida ama qabiil ka tirsan Soomaalida laakiinse xaafadda xawaalaha u socda aniga xaafadda xawaalaha adiga معاني تدعى وندينا قال لي قدلني والله حفظه شراب شرابسي اوكي شراب ما فاهم ايه sharaf xagooda عب سيده شرابك دردن raaciib waa dadka lama caabinin weynaa كل عام وانتم بخير okay xaafadda soo tagi doonaa hadda u dhownahay تجي دوناو ما هو دحمرس waa هذا dhaxmar weyn miya xaafadda dhaxmaraya xawaalaha ina wadadeeda istaago waa waxyar aad tuso waxyar aad tuso xaafadda xawaalaha ninkaan degnaan jiray sababaha waa adiga kaale alfana xelu xaafadda waxa loogu soo buriyaa waxay tahay asiis aad sharaf $7 ku heesi jiray waagi hore marka shaadi xamar soo aad waa fahamaba laakiin adiga xaafadda waxa laga buriyay xamar kala cays adiga laakiin wali hadda $8 maro $1 lagu daray xaafadda ana taliya ka taamiya انا ما كنت اه اوكي ما يعني كان الله يعني يقول حلو حالي اوكي ninkaan xaafadda taliya wuxuu u yahay waa la ogyahay no gabdhaha hadda soo kacayo waa garaac حافظنا وش شلون صدق
warkaas waa fadhiyaa xawaalayaasha aad u salaamaya حوالا دمي ها xaafadda xawaala aad baan u salaamaya dadka ku joog walaalayaal magacaasa iga qosol siiyay sababta aan u soo aaday aan u imaado waa ka sareer xawaala soo hadla imaada meeshan xaafad walba insha Allah tagi doonana waxaan filayaa daawadayaasha ku xidhan Cabdullaahi Kashka inay commentiga taasa been ahayn ku soo shumama xaafadii aan idin sheegay xawaale Soomaha xaafadii baan joogaa معناته واحد ده حافظ حوالا xaafadda xawaale وحافظ كرام كذا نودي مرقا hay noo warbixi xaafadan حافظ نصور والله لا عايزة waa xaafad aad cajiib u ah aad baan ku salaameynaa mid aad u dhaqan xun salaameynaa xaafadan waa imaanay aad baan u salaameynaa dadka ku dhaqan xaafadan waa xaafad aad magaceeda ii soo jiitay oo waxaan marnaba ah inaba caadi ahayn warbixin yar oo kooban haddaan ka siino ku sii fogaan xaafadan waxaa ku yaala dhankeeda kale radio Hargeysa radio Hargeysa oo qadiimi ah waxaa ku yaala stadium kale oo caalami ah halkaas isaguna ku yaala jira واو قرنك ma garat oo garoonka magaciisa waxa la timca dawr samaan ما حوالا ونبغى xawaala sidoo kale xaafadan waxaa laga helaa Bilaal Bulshaawi mid dhashay waa kana marka saaxiib wax kala jiro Bilaal Bulshaawi ku qabay jirna waa kana Kashka loo door buu ku qabay jiray okay Bilaal Bulshaawi cunigiisa saaxiib marka insha Allah waxaan aadi doonaa 150 150ka aan kor istaagayna mar kale waxaan imaanay wada aad u qurux badan wadadan waxay tagtaa Djibouti waa taas gadaal jirta u baahan dad tii kartaa ay xilwe waxaan ku tagi kartaa waxaan ku tii gaariga gaarigan sida qaldan u habaysan قاعد شدن ka deji قاعد عايزة degan gaarigiisa waa la kaftamayay gaarigeeda la kaftami kara ma farxiyo wato ciyaarta ida كشك محل واحد صنع Kashka waxa lagu xasuusanaa inuu madaxa qubayska reer ani Soomaaliyeed horta meel walba qubaya Axmed Jeesu صدقة ku qubaya صدقة bixiyo no sadaqada waxa ka horeysa ma taqana Kashka waxa lagu xasuusto ma taqana qayrkii meed ka meeran signalka buu soo taagay okay حاجة أنا ما كنت عصاني حاجة زوجي saadhan wadiha shoobay wajiga dheer qayrka meed ka meeran maksadiisu daaw ani qeyrkay meedkay meeraan waa sax ninkan qeyrkiisana waxay sameeyaan hooy ko meeran xidwaanada la sheegaysta أصحابته مقالك وصلنا مني سفر باقلنا قبل ما سعنا سود عيا إن شاء الله. إن شاء الله. كشكنا waxaad tagi قبل doonaa الفرق الله وقعه waxaa hadda waqti xaadirkan u soo socdaa Gabiley laakiin muuqaalkan dib uu ka imaan doona dhiman Aad iyo aad. Gabiley muuqaal qurux badan ka soo diyaari doonaa waxaa garbahay taagan oo si qurux badan magaalada ugu shadaya waa kuwa ana qadra iyo sawdo iyo sidoo kale فيفرح ما farxidana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum